السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهي سيداتين عافمادكينا حالتين كورا أنا كويسكو في عنا الحمد لله إله أنه نعمي أنا وأنا بدن سوكعنا ولا لي ما توحين وذا قصة إتحابت أو حنون جسي أو قلبي جيجا كسير حنون جسي والله إنا بنشيغين ولا لهي قف كستو أو دلكي دبت جوكتو أو مقع الصومالي كو هذا شو قبل داس هلو سو دعي ولا شاء إلهي إنه amuurteeda u sahlo oo ilaahay u saqiro waxay rabto iyo meesha u baahantahay inuu rabbi u soo irxamada ugu talagala ilaahay idinkiis walaalayaal anaga meel kasta waa iskaaga dhib qabnaa xanuunkeenu iska badaya baahideenu waa iska badan tahay bilaadan ayaanaan bilaadada baahidaadan way badan tahay jirdaadan way badan tahay taan waxba haysan waxaas keenayna waa faqriga iyo wadankeena iyo colaad iyo dagaal iyo dhibaato iska haysto wadan iska dhibaataysan ayaan nahnay ilaahay baa taladeena saaranay isaga asaa wajalaa wallaahi inaana beeshay qof kasta oo Soomaaliya meel leh ayay ka cabanaysaa cabitaanku wuu kala badan yahay markasta markaad adiga isla yaabtid wax kaasi hooseeya ayaa fiirinaysaa gabadhaas walaasha oo muslimada waa gariga joogta Atina joogahay dhahday hooyadii u soo baxay waxa caloosha la sirto hooyadii u soo baxay hooyadii inaa caawiya ugu talagalay dhahday hooyadii u soo baxday uur ayaa meesha ku yeeshtay uurkii markaa ku yeeshtay cunugii qalitaana maray dhahday waa lagu qalay ka bacdi lugahii ayay ka barartay cunugii asagoo jiro 7 maalmood may dhahdaa laga qaaday maanta 6 bilood jira dowladii markaan dhahana cunugayga la sii guri adiga adreeskaada ku qoran inaa heshid ayaa Atinana way dhib badanta wayna culus tahay sahalna ma aho dad badan oo soo mara ayaa arkay dadka jooga meeshaas ma isku raxmadaan dadka meeshaas jooga ma la isku naxariisto dad waxaa jooga meeshaas dadkooda Yurub u jiro kaala arag walaalkiis amba hooyadiis dhasho lacag hadda lacag 10 kun lagu qarash kareena iyo qof familkeeda daruufeest is not easy waan dareemi karaa aniga بالمناسبة إلهي وحان كبريا إيضا ماشي كومنتاهي حتى كور أمال قبل لهي أو يوتيوب له دادكو دوتا أي حتى كور أي كسو مقدسة إيضا عدك كاركي أو وحلي أرولي وحي هدن ويقرد ماذا يكون هذا قبل أقول هذا لدقت هاي سرير نكست بالسرير تيسا قف وحكوسة ميني سنة ماله إلهي بلا آدم نوباهية والله ولا أويه واي aan markasta anaga Yurub ugu dhibaataysanaa iyo daaxa adduunyada isbishra hadana dhanka ilmaha anaga ayaa u badan in naga qaato ma dhaay hooyo Soomaaliyeed xum qadarka oo qadar Allah waay ilaahay wuxuu keen lama diidi karo ilaahay qof kasta bas uu mucjisana laakiin anaga ayaa u badan dadka ilmaha laga qaat qof ilma laga qaatana waan dareemi karaa aniga ayaan dareemi karo ila hadlaay wallahi it's not easy hooyo cunugeeda ka dhaqaaqay dhibka jirana waxaan rabnaa marka aan wadamada qurbaha soo galnay waxay leeyihiin caada dhaqamo kala duwan diino kala duwan sida anaga waxaan iskeen dad iska masaakiina oo laakiin iska soo dheero iska qaylinayo waxa tahubsanayno iyo xanaaqaynana too much waaye wallahi bisaraax markaad fiirisid dadka badanidiis fiirisid Soomaalidu waa dad kulkullo xanaaqay iyo laakiin waa soo noqosho og yihiin marka ilaahay waxaan ka baryaa qurbo waa ku dhibaataysanahay meel kasta waa lagu dhibaataysiyaa dadka waddanka jooga baahiyaas dadka qurbaha jooga dhaqamada oo qurbaha ilmihii ay ku dhaleen wadamadan qurbaha waxa u malaa ilmihii inay normal noqona cunugi saaki 2 saac ayaa ka wada gurigaada iskoolkii agaysa 2 saac iyo 40 daqiiqo ayo iskoolkii kale cunugaada waxa hadana kala soo baxay iskoolka 9 saac iyo bar amba 9 saac iyo 15 daqiiqo meeqa saac cunuga markuu guriga imaado gacmihi iska dhaqa hooyadii iska neerfaysan hooyadii aan baxnaaqsan hooyadii oo dhibka adduunyada inta ka bata meel ay jahadeeda jirto laheen cunugii oo su'aalo kala duwan ku dhahayo waxaan rabaa happy birthday dhalashina ii sameeysid aniga waxaan goorma holiday aadena aniga goormaan live kan ka badmena waxaan rabaa sidii live ka cunuga cadaanka beenna ma ku sheegayo wallahi cunuga cadaanka sidoo ku noolyahay cunuga cadaanka waxa ka sii daro oo aniga aan arkay indhahayga maanta aakhir la soo istaajay dadka muslimiinta arabta camal arabta kaar ciyaalkooda u sameynaa debit credit
ribi ay ka qaadanaa bangiyada ilmaha dukaaminta Next iyo Debenham yaa la gadaa haye loo gadaa kala nuuc every week kastaba ilmihii dhar u gadaa Soomaaliya ku soo hooda inay biisho way rabtaa iyada ayuu tiray gasho way rabtaa waxyaalo badan inay dadka caawiso way rabtaa gargaray leedahay qof maskiin oo walaal lacag loo aruurka way ku dareysaa waxay arkaysaa familkeedii oo rafaasa way ku dareysaa aniga ma complaina hooyada Soomaalida waxaan complaina wadamada ay imaanayno noo wada duceeyo kulligan walaalayaal oo gabadhaas videogeyga YouTube-kayga wax ma ku caawi kari hataa $20 amba $10 diro waxba uma dareyso laakiin soodkayga ayaa YouTube-kayga u soo galiya please and please gabadhaas caawiya please and please gabadhaas caawiya wallahi waa in bariya gabadhaas caawiya qof alla qofkii aragtana videogeyga ha share gareysa any Somali oo leh Instagram website wax kasta leh ha ugu share gareyso siday gabadhaas benefit yar ugu soo baxo meeshaas ay wax ka hesho hadoo 10 qof ay iskugu dardarta boqol waa 2,000 haday 20 qof iskugu dartan waa halaasoo lacaga please and please waa in barya ani maanta hadaan lacag hay lahay wallahi oo lacag haysan lahay gurigana waa u jaara cunugeeda soo ku kaasatana way kaasaleed wadamada lacagaha lahna waa keeni lahay sidii UK camal amba sidii oo wadamada lacagta leh adigu waan caafimaad ayaan ugu qaadi lahaa hadaan lacag haysto business aan leeyahay oo daawooyin iyo wax sida uga laakiin aniga ma haysti ilaahayna waa ila ogyahay wixii garaankeyga ka mahagarana garaankeyga wuxuu yahay waana u duceynaa YouTube-kaygana ugu share gareena Facebook-kaygana ugu share gareena ilaahay inuu taqwada waafajiyo aniga dhabna noo soo duceeya muraad ayaa leeyahay muraadkaygana anigana inaan helo ii soo duceeya walaalahay meel kasta joogtay dalka iyo dibadda video waa ku dheeraaday halaha kalena gabadha ayaan tusinaa videogeeda 12 daqiiqo ha noqdo 13 daqiiqo ha noqdo beeshi noqdo like sharing comment dhiirgariya walaalayaalo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalay markasta joogteen assalaamu calaykum walaalayaal waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Greece marka walaalo waxaan rabaa inay caawisiin waxaan ku noolahay wadankan Ateena aan ku noolahay marka inay caawisiin rabaa amalkeese waxaan dhahay inta ku xiran inay caawisaa rabaa ay ugu caawiyaan Allah dartiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiisa iyo inta muslimka la caalamka muslimiinta joogta Soomaalida meel kasta joon ay kana waxaan rabaa inay caawiyaan aniga waxaan ahay gabar walaashiin oo Greece joogto oo maanta xaaladaas awgeed waa saas lugeyga saas xaaladiisa ana Greece joogaa waan xanuunsanahay walaalayaal walaashiin ahay oo xanuunsan marka inaa Ilaahay dartiisa ay u caawisiin Soomaali weynay meeshana ka imaade wadanka caafimaad u soo wallahi kama helin wax caafimaad ah wadankan kama helin wadankan ana waxaan ku dhalay wiilaan ku dhalay wiilkii waa laga qaatay wiilkii wuxuu jiraa 6 bilood asaga dhanba hal wiiga haystay ee qalina wiilka ku dhalay brooshin 7 bilood ku dhalay sidii waay Ilaahay wuxuu ii fududeeyay waan dhalay qalina ku dhalay cunugga isbuucaan haystay cunugga gaalada ay qaadatay hooyo waxaan maanta xanuunsan oo maanta cunuggeedana haysanin cunugga markaan ka daba orday aan dhahay dad u diran waxa lagu dhahay cunugga waxaa laga rabaa address buuxo oo guri adaa ku qoranta cunugga nolol fiican inaa aasii kartid aan dhahay intaasna maanta ma awoodi miskiin ayaan ahay shalna walaalahey Soomaalida shalay anoo baahan i caawiyeen Ilaahay dartiisa ugu caawiyeen kastirta ee ii soo diray ugu caawiyeen Ilaahay dartiisa ugu caawiyeen maantana way iga dhamaatay cunugna iga maqan yahay 6 bilood jiro
hooyo aan nahay, waana xanuunsanahay, waan u baahanahay. Aniga adinka dada ahayn ma haysti. Aniga hooyada Soomaaliya joogta wax ma haysato. Wixii aan lii soo diray waxa ugu sii diray xaaladaas maanta ku jira. walaalayaalo Ilaahay dartiisa yaa caawiya. Aniga waxaan xanuunsanahay. Aniga waxaan walaashin sariirtaas aad saaranahay aan fadhiyo aan ku jiranahay aan ku dhawaateysanahay oo maanta galaas biyo qof siinay oo ku jirin Soomaali meeshaan joogto wallaahi ma jirto. aan la dhacayo ani le xanuunsadada sariirtaas aan saaranahay aniga la is caawi karo qof kale ma caawinaan meesti walaal qof ila socdo male kaliya waa cunugeygan way iga maqan yahay anigana waa xanuunsanahay. waan Soomaali weyn halka joogtiin inay caawisiinaa rabaa dadka oo ku xiran ammaankeesa walaal yaa caawiya Ilaahay dartiisa yaa caawiya wallaahi. aniga waan xanuunsanahay cunugan boqolo waa iga maqanaa dhale gaalada haysato qof yaa caawisa ama cunugeyga oo garab oo igu siiso wallaahi oo fiican weli ma helin meesti. anigana halkaan bukaan ku haay cunugeyga waa iga maqan yahay hal isbuuc hayste hooyo cunugeyga waa u baahanahay. inta labaad wax meeshaan kuma haysti. Soomaalida intay caawisa Ilaahay khayr ha siiso way caawiya wax waa ii soo direen laakiin way iga dhamaatay. walaal kaliya degnaan guriga degnaan kaliya waa iska fiicnaa wixii markay dhamaadeen guriga waa liiga soo saaray sirraana marka sirraasaa tacal degnaa Soomaali hataa kuwaas oo degan muku caawinaya adoo xanuunsana waxa u baahan tahay oo Soomaalida inta joogto kuma siinaya marka wallaahi aad iskaga dhibana wadanka dhibana gariinka marka walaalahay inay caawisiinaa rabo Ilaahay dartiisa igu caawiya ammaankeesa inta ku xiran candaan walaal Ilaahay dartiisa igu caawiya inta Soomaali weyn muuqeey maqalkey